maalmaha yarka ah oo adduunyadan aan joogno waa maalmo yar laakiin qofka Ilaahay waafajiyay wax badan oo badan uu sameyn karo waxaan la gudboon qofka muuminka ah saacadaha uu nool yahay adduunyadan uu joogo inuu ku mashquulo daacada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo badsada acmaasha saalixaadka ah hadii lagu yiraahdo bari waa la guurayaa waana la safrayaa safar dheer baana la gelayaa sahaydaada soo diyaarso habeenimo ayaad haabhaabanaysa laakiin miyaad ogtahay saacadaha cimrigaaga ka dhiman oo adduunyadan aad ka guuraysid saacadahaas aad fadhidid oo yarka ah umba adigu xukuntaa oo iska leedahay laakiin waxa ka dambeeya saacadaha dambe inaad gaaraysid ma og kuwii horena waa tageen waxay Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala lagu diiwaan galiyana ma ogid ayna ku didaalna acmaasha saalixaadka haddaba waxa fiirisa acmaasha saalixaadka ah fadaa'isha ay leedahay iyo qiimaha Ilaahay agtiisa ay ka leedahay qofku wuxuu ku helayaa nolol wanaagsan adduunyada dhexdeeda uu ku noolaado iyo liibaan aakhira Ilaahay agtiisa uu ka liibaan Ilaahay baana quraanka kariimka inoo sheegay man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun qofkii sameeya amal saalix asagoo iimaan leh labadaas lama kala reebo الإيمان والعمل الصالح ما كلا هران قفكي لبداس لي ماذا الدنيا دحديدا waxaan nooleynayna nolol wanaagsan ayaa nooleynayna ba Ilaahay nolol wanaagsan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ballanqaad waxa ugu weyn nolosha wanaagsan waxa weeyaan inshiraahu sadri wa na'iimul qalb qalbigiisu inuu degan yahay oo inshiraax iyo waasicnimo uu haysto waxa Ilaahay uu siiyay uu qanaaco ku qabo hadduu wax yar helo ku qanacsan yahay hadduu wax badan helo Ilaahay uga shukrinahayo amalkiisi aakhira laga rabay inuu la yimaadana uu la yimaado waa nolosha ugu weyn inuu qofku ahaado qof Ilaahay ku xiran subhanahu wa ta'ala qof daacada Ilaahay ku dhex wareegaya أعماش وسمينا يؤدن أي تهي أعمال إلهي رالي جلنا سبحانه وتعالى نلشاس بإلهي وبلغات ما هن دار بدن ما هن دبغي بدن ما هن متقنا حول فر بدن ما هن بيروا وين أنت أيجو هايسته أيه هبين يمال سيحن لأيه هندتك عن إيمان كلهين إلهي قناعة أنت كقاضي همي يمرق يحزني لكربك وضع داعي محايا لطاعة إلهي بيسن هيسن أعماش الصالحة هاي هي عبادة معان كذي بين هيسن قف بارك يسهل كاس مساجد كسوق ليه قوي سيركا اسكدو الضوبانية اسكبر كانيو اسكسيحانية وحول والأه هي وحول بهار وهيان لك سخورينية كاحولير كام مقعير كي مقع لها أو هانتيدا لهانا وحويان saaka suu kabaha u gashaday buu ordahay maantoona buu orday caaw markuu soo dhacana asagoo aadaaraya oo taahaya ilmihii waa seexdeen haweentii waa seexatay cashadii halkaas loogu daboolay inuu cuno ayaa culays ku noqonaysa intuu cunayana shaqo kale hayaado telefoonno soo dhacay iyo hawlo soo dhacay kala xalinay goormee qofkaani nasanaya oo waxaan uu haysta ku nasanaya oo cibaadada iyo daacada Ilaahay ku gudanaya markii Ilaahay qalbigiisa waafajiyo oo Ilaahay qalbigiisa uu dareensiyo meesha ay nimcadu jirto meesha ay naga jirto Ilaahay markuu na dareensiyo ayaan ogaanaynaa oo nasanaynaa oo raaxaysanayna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam bal Ilaahay agtiisa fiiri waxa yaala iyo waxaynu ku mashquulayno isku dhibayno Ilaahay wuxuu leeyahay a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ayn رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
waxaan u diyaariyey addoommadayda addoommadaasi waa kuwee addoommo dhan maaha licibaadiya الصaalixiin weeye addoommada wan wanaagsan oo saalixiinta ah waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaysan il arag walaa udunun samicat dhegna aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiisna aanba ku soo dhicin ba ilaahay diyaariyey oo ilaahay uu kaa rabaa camal yar adduunyadan aad la timaadid oo saalix ah inaa ilaahay uga iibsatid jannada qiimahaas leh oo sidaa u weynin ka badan maalkaaga ku gado maskaxdaada islaamka ugu adeeg lisaankaaga ugu adeeg oo amarka iyo wanaagga amar xumaanta ku reeb cagahaaga ugu soco islaaxa iyo khayrka iyo wanaagga waxa ilaahay uu diyaariyey eeg adduunyada haddaad ku wareegtid meel kastoo aad booqatid waxa indhahaagu ku mabsuudayaan oo yaalla ilaahay agtiisa marka loo eego waxa yaalla wax jira ma ishaadu maxay qabataa waxa ugu qurxoonoo ishaadu ay qabato waxa ugu qaalisan adduunyada dhegtaadu ay maqasho waxa intaa meel fariisatay qalbigaaga ku wareegoo ku soo dhaca intaa markaa isku geysid waxaad ogaataa waxa ilaahay kula raba miskiinkaas adoo ah inay ka weyn yihiin oo ilaahay uu ku diyaariyey iimaan iyo camal saalixana lagugu xiray acmaashan saalixada ah waxaa lagu gaaraa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaado maxaa ka weyn adigu ilaahay baa jeceshahay laakiin in ilaahay ku jecel yahay ma ka dhalanaysaa waxaa laga yaabaa ilaahay inaad jeceshahay rasuulkana aad jeceshahay waddadii allihii rasuulna aadan haynbaba ilaahay agtiisana lagaa lacnadahay wax jacaylana ilaahay agtiisa aysan ku oolin laakiin muhiimaddu waxay tahay in adiga lagu jeclaado ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayajcalu lahum الraxmaanu wudda kuwa ilaahay rumeeyey acmaal saalixa la yimid labadaasay wada socda ilaahay wuxuu u yeelayaa agtiisa wud jacayl baa ilaahay u yeelaya jacaylkaasi waxa weeyaan addoommada quluubtooda maxabbo ayaa loo dhigaya ilaahay agtiisana waa laga jeclaanaya walidaalika nebigu waa ka yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha idaa axabba cabda naadaa jibriil haddii ilaahay addoon jeclaado dhulka jooga ilaahay jibriil buu u naadiyaa isagaa malaa'igta ugu weyn markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay jibriil isagoo la hadlaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibbah ilaahay hebel buu jeclaaday ee jeclow fayuxibuhu jibriil malaku jibriil baa qofkaa jeclaanaya intaas kuma koobna fayunaadii jibriilu fii ahli الsamaa wax allaaliya waxa samada jooga ayaa dhexdooda looga naadinayaa malaku jibriil baa ka naadinaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibuuh ilaahay wuxuu jecel yahay fulaan hebel baa ilaahay jecel yahada jeclaada fayuxibuhu ahlu الsamaa samadaa laga jeclaado halkaa markii arrintiisa laga soo oggolaaday uma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlard dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul baa loo dhigaya qabuulku waxa weeyaan in la aqbalo ducadiisa khayrkiisa wanaaggiisa ayaa dadka quluubtooda loo gelinaya dad baa dhintay 1000 sano ka hor oo aynu maanta u abtirinayno leenahay hebel 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 xadiidkii aynu sheegnana aan leenahay radia allaahu canhu raximahu llah aynu ducaynayno imise masaajid baa maanta jumcada keliya imaamu albukhaari looga ducaynaya ma xooluu ka tegey ma boqor buu ahaa ma madaxweynuu ahaa ma webiyaal buu dilaaciyey ma daaruu isdul saaray imisaa imaamu muslim looga ducaynaya imisaa culummadii cilmiga manaabirta iyo meel walba markii magacooda la soo qaada radia allaahu canhu raximahu llahu la leeyahay diinta ilaahay bay u adeegeen xag allah laga jeclaaday jacayl baa dadka quluubtooda loo dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala magacoodii ayuu baaqi yeelay dad waxaa jira ayagoo waa hore dhintay
ولفهودي باليوبين إلى يومنا هذا نحن نكون ومحدثين تاس أهل العلم قاسمين dad waxa jira ayagoo hadda nool oo dhex jooga la mid ah ayagoo dhintay la mid ah wax sheegaya iyo wax xusaya aan la arag haday dhintaan iyo haday nool yihiin isku mid ay tahay bal ka war liiskaasi waa furan yahay ilaa hadda waa awoodaa ilaahay inaa weydiisatiin oo kugu dara kuwaas shaqadii iyo amalkii saalixana la timaad acmaashan saalixada ah فضائش أي لذا هاي أواوين وحا كمد درجات كالسرع يلقو قارا وشنط ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات الله بدي يسكحر المجد أسقوا إيمان له عمل صالح اللي يمضغفكي ماذا فأولئك لهم الدرجات العلا درجات كالسرع يدد كاسلي وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم dadka jannada jooga korkooda waxay iska tusayaan qolal guriyo ka sareeyo oo dad kale ay degan yihiin jannadii way joogaan kal kawkabi durriy al-ghabir fi al-ufuq sida xidiga hawada ku shareeran oo samada jira sida inta la isku fiiriyo la isku tuso ayaa waxa la isku tusayaa dad ahlu jannah dad ka sareeyo halka degan markaas nabiga yiri tafaadul ma baynahum waxa u dhaxeeyo qadarka ah oo kala sareeyo weey dadka iyaga kuwana halkaas ay joogan kuwana waxay fiirinayaan sida xidigii ayuu wuxuu u fiirinayaa hebel hebel laga yaabo inay adduunyada markay joogeen isku hooyo isku aaba ahaayeen isku meelna ay degnaayeen labadoodina jannada ay wada galeen laakiin didaalkooda isku mid ahayn didaalkooda ayaan isku mid ahayn markaasay saxaabadu waxay yiraahdeen yaa rasuul allah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum midaasi ma meeshii loogu talagalay anbiyada guryahoodii miya oo cid kale aan looba ogolanaysan gaarahayn markaasuu yiri nabigu maya walladhi nafsi biyadi waa dhaartay nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay buu ku dhaartay rijalun aamanu billah wa saddaqul mursalin ودد لي يمد الإيمان والعمل الصالح فضائش إلا ذا أعماش الصالحة ذا وحاكم ذا إن السبب الطهيقف كإلهي سبحانه وتعالى تنبقي سينو رافي أحواشي سنة إلهي وهقاتني إلهي سبحانه وتعالى وحو الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات كو إلهي الرميي أعمال صالحة ليمت وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم تدكا إيقا إلهي سبحانه وتعالى دنبي قودي ودافي دنبي قودي إلهي ودافي حالة دودي حال كودن إلهي وهاقاتشني أحواش هذا إلهي وهاقاتشني qofku wuxuu ugu baahi badan yahay adduunyada umurihiisa in loo hagaajiyo taytahay awlaad taytahay caruurti haday tahay noloshii haday tahay caafimaadkii xagee ka helaya al-iimaan wal amal salih a'maasha saalixada ah qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay waxa kamid ah حسنات ير أو قف كل يماد أي الله الله إلهي رحمتي سويني كده جن حريستي سويني كده بل وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحو لي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة أدون كيغو هادو كشيك كيستو نفتيسة إنه وناك سمعي وحسنة سمعي فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل وحان أقرأ يا حسنة انتونا عمل فلين بل كور قلبي قاقا وحا كقو آمسي شيء حسنة أو وناكسن إنا السميسد انت هذا كل دقاقين با إلهي كو قريبا فإذا عملها هادو سمايو فعل كدره فأنا أكتبها له بعشر أمثالها
طبعا لا بكيد بان أقريا بإله إلا سبحانه وتعالى وإذا تحدث عبدي بسيئة هذه حمان نفتي سواء وشا كيس أو قوان صدى دنبك النوع عاصين وسميه فأنا أغفرها له ما لم يعمل وأنا أضافيا انتون عمل فلن وقالوا عفينيا حتى هذا نقول دقائق فإذا عملها فأنا أكتب له بمثلها هذول لي ما ذو عمل فله وحان أقريا سيئة سو كل جدها نقريا أنت إلهك تايب الله دقيا بل إلهي الرحمة دي سواسع النمدة يقال كذا بلاك كل وحان كجاريسا وحويان الأعمال الصالحة عمل كوينو صالح النقضه سيكو أغانيسا لبشر دي أساسية دقيس حفظي أهل كاغا أشيك غير كان أشيك شردي كوباد الإخلاص عمل كان إنه إلهي درتي كايا إنه كاهين بريه بلا وحاسي ساكيش وإنه كاهين دنا الدنيا هلا شيكو وإنه كاهين مقعي مقالات كو جارتي دي منصب إلهي درتي إنه كايا dadka laaluushka bixiya oo laaluushka maalin walba bixinahay oo hebel uu oranayo aniga igu shuba lacagta iga qaata ma ilaahay dartiis bay ka tahay waxay bixiye kama wala weydiin maanta qiyaama riyaa iyo istusus bay u bixinayaan antidooda in badan oo kamid inay waxaan ilaahay dartii ay ka yihiin dan gaarada kalaay شرطي الله بعد هو أساسي وحويان المتابعة عمل كان يا وقت ضيانا يسا طريقة إلهي أدوك دوانيس وأجر كقربت نبي محمد مسمي سيدة موسمي سيدة موسمي هذه النبي محمد عمل كان أون الصمي وعمل كتابك إلهي السنة النبي كو قطماؤنا نهين وحاد نبركو كاغت شبي وجهدك هبين يمالنا ضب حنيسا وحاد إلهي أقول ديرانيس وهذا إلهي يقول وانا وحانا واقو كو قبري يا ما انت هدادا اسكهو بين مرعادا سول لا بنكري وانا كقبكر تتك بدعاء إلهي يقول وانا oo haysta inay ihsaan iyo wanaag sameeyaan oo ilaahay bidca ugu dhawaanaya ilaahay uga tawadkeen ilaahay ha uga tawadkeen amal kastaha ku didaaleen inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga waafaqsan yahay ilaahayna ha uga tawadkeen